ayaa waxay dhaqaajisay ciidankii ugu badnaa. Masar ku dhawaad 40,000 oo askari ayaa waxay geysay waqooyiga gacanka Siinaay iyagoo doonaya inay ka hortagaan qorshe kasta oo la doonayo in lagu barakiciyo dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta. waa tiro 2 jeer ka badan ciidankii lagu heshiiyay 79kii inay Masar geyn karto waqooyiga gacanka Siinaay. saraakiil dhanka militariga ah ayaa la hadlay wargeyska Middle East Eye waxay sheegeen in ciidanka Masar ay aad u kordhiyeen joogitaankooda waqooyiga gacanka Siinaay waliba heer aan horey loo arkin sanadihii la soo dhaafay. maxaa yeelay Masaaridu waxay ka walwalsan yihiin tirada ciidamada Israa'iil ee sii kordhaya ee la geenaya deegaanada dhinaca xadka iyo qorshaha Israa'iil ay doonaysa in lagu qasbo shacabka Falastiiniyiinta inay dhanka Masar ay u qaxaan. saraakiisha marka waxay sheegeen in 40,000 ee askari ee halkaasi la geeyay ujeedku inay tahay inay ka hortagaan barakicinta dadka shacabka ah iyo qorshaha Israa'iil ay damacsan tahay oo Israa'iisha weyn oo xitaa Masaarida saameyn ku yeelanaysa. amarkan yaa bixiyay marka oo ciidanka halkaasi lagu geeyay. amarka waxaa bixiyay madaxweyne Cabdifataax al-Siisi isagoo ah taliyaha ugu sarreeya ciidanka qalabka sida ee dowladda Masar kadib markii uu la kulmay golaha sare ee ciidamada iyo golaha amniga qaranka ee dowladda Masar. golayaasha oo soo jeediyay marka in qasab ay tahay inay Xamaas la dagaalamayso oo ay doonayso inay Xamaas ka saartay deegaanada dhinaca xadka ah inay Falastiiniyiinta halkaas isugu geeyaan. Qaahira arrintaas way diidan tahay. Masaaridu waxay sidoo kale dareemayaan culeysku kaliya inuu iyaga usan hayn laakiin culeyskan ay dareemi doonaan dowlado kale oo Carbeed. waxa dhankeeda Qaahira ay wadaa qorshe la doonayo in maamul loogu sameeyo maamulka Falastiiniyiinta ama dhinaca daanta galbeed iyo marinka Gaza oo la isku xiro iyagoo doonaya ciidan iyaga ay tababareen dhaqaalana lagu bixinayo inay amniga la wareegaan halkii iyaga lagu marmarsiyoon lahaa inay amniga guud ahaan ay la wareegaan kadibna xoogagga iska cabinta Xamaas meesha laga saaro. saraakiishu marka waxay sheegayaan xukuumadda Qaahira in dhaqdhaqaaqyadan ay wado ay ku micnaysay difaac nafsaani ah balse isla markiiba ay cadeynayaan weerar kasta oo dhulkooda lagu soo qaado inay si adag kaga jawaabi doonaan. taangiye ayaa halkaasi la geeyay, ciidan badan ayaa halkaasi ku sugan, gawaarida gaashaaman, nidaamyada difaaca hawada, ciidanka qaaska ah ee sida gaarka u tababaran, taangiyada nooca M60 loo yaqaano kuwaas oo hareeraha Rafax lagu daadiyay iyo dhanka iyo wadada ama magaalada Sheikh Zuweyd loo yaqaano, tuulada Al-Jurra iyo deegaano kale oo dhanka xadka u dhowna ciidankii ugu badnaa ay Masar geysay. marka Masar waxay taagan tahay intii mustaqbalka annaga dhulkeena la qaadan lahaa saameyn ay nagu yeelan lahayd biyo intaysan ku soo gaarin ayaa la iska moosaa. gudoomiyaha gobolka Siinaay ayaa warbaahinta la hadlay horaantii bishan wuxuuna si adag u sheegay in qof kasta oo u maleeya in xuduudahooda lagu dhawaan karayo inay la kulmi doonto jawaab lama filaan ah oo waliba argagax leh. taasoo ka dhiga marka inay Masar isu diyaarinayso dagaal adag, dagaalkaas oo Israa'iil ay la gasho. Israa'iil 2 toddobaad ee la soo dhaafay waxay ku marmarsiyoonaysay in hub laga soo dhoofinayo ama laga soo gudbinayo gacanka Siinaay ka hortageen oo diyaarada daroonaysa lagu soo qaadayay. madaxweyne Siisi marka mowqifkiisa aad buu u adag yahay. xaaladda diblomaasiyadeed ee Israa'iil iyo sidoo kale Masarna hoos u dhac weyn ayaa ku yimid 7 Oktoobar markii dagaalka uu bilowday. haddaba waa maxay qorshaha cusub ee miiska la soo saaray oo dhowr jeer xitaa miiska la soo saaray laakiin markan mucaaradka Israa'iil xitaa ay taageersan yihiin. qorshahani waa inay Masar amniga magaalada Gaza ila wareegto muddo 15 sano ah. warbaahinta Israa'iil waxay baahisay in hogaamiyaha mucaaradka ee Israa'iil Yair Lapid uu si rasmi ah ugu gudbiyay xukuumadda Washington qorshe dhameystiran ama hindiso cusub oo madaxweyne Trump la hoosgeeyay. hindisahaas oo ah maalinta xigta magaalada Gaza iyo cidda maamulaysa iyo sida xaalka uu noqonayo. qorshahu muxuu yahay? waa in 15 sano Masar ay maamushaa magaalada Gaza oo lagu biilaa oo dhaqaale wax kasta la siiyaa iyagoo Masaarida la shaqeynaya Israa'iiliyiinta. haddii qorshahani ay diidaanna Masaarida xujooyin badan ayaa la hordhigayaa. waa inay bixiyaan oo ay dib u magaan waliba si degdeg ah $155 bilyan oo dollar oo deyn ahaan loogu leeyahay dowladda Masar. iyo in arinta webiga biyaha webiga Niil aan iraade ee dowladda Ethiopia la sii dharaandhirin doono, karaaraha la jebin doono. iyo arinta kale oo deegaanada dhinaca xadka ee Masar ee dhanka Suudaan iyo Liibiya iyo xogaa carqalada kale laga abuuri doono. arinta ugu daranna waa in dhaqaalaha laga joojin doono Masar maadaama iyada lagu taageero. dhammaan qorshayaashaasi waa kararka cadaadis ee la doonaya Masar in loo adeegsado iyada way ka soo horjeedaa laakiin qorshe
u eg sida ay reer galbeedka iyo maraykanka iyo israa'iil ay doonayaan ayay ka shaqaynaysaa oo ah in maamul maqaal saar ah loo sameeyo dhinaca iyo daanta galbeed aan idhaahdo marinka ghaza maamulkaasina israa'iil uu si dadban ula shaqeeyo marka waxay taagan yihiin annaga sheekada ha inaga wareegto falastiiniyiinta oo keliya sheekada ha ku ekaato masar inay diido falastiiniyiinta inay qaabilaan waa yacni xujada ugu adag ee israa'iil hor taalla oo ay doonayaan masaarida inay ku qanciyaan cadaadiskaas xooggan ayay masar hadda dareemaysaa waxay dhankooda yidhaahdeen annaga waxaan diyaar u nahay in ciidan tababaran